السلام عليكم. افوكادada waa qayb kamid ah khudradda maalinlaha ah ee aan cunno. Cilmi baaris badan oo lagu sameeyay khudradan ayaa si isdaba joog ah u cadeysay in ay faa'iido badan u leedahay jirka bini'aadamka, caafimaad ahaan iyo qurxintaba. Maantana waxaan rabaa in aan kula wadaago sida uu jirkeena isu bedelayo haddii aad qaadato hal xabbo oo avokaado ah maalinkii. Caafimaadkaaga sidee noqonayaa? Maqaarkaagana maxaa ku soo siyaadi kara? Dabcan kuwa inaga mid ah ayaa aaminsan in mirahan avokaadada ku badan tahay maadada faatka ah. Balse su'aasha meesha taal ayaa ah, ma faat dhibaato ku keenaya jirkeena? Arrimahaas iyo kuwa kaleba aadna ku anfici doona ayaad kaga bogan doontaa mawduucana maanta. Channelkeena ku cusub tahay waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa in aad nagu soo biirto. Haddii aad videogan aad ka heshana fadlan like ta noo saar, walaalaha kalena u share garay si ay ayaguna uga faa'iideystaan. Faa'iidada koowaad, neefta ayay fresh ka dhigtaa. Inta badan waxa afka inaga uriya waxa horseed u noqda in metabolic system kaaga ama dheefshiidkaaga xanuun hayo ama caloosha laga hayo. Avokaadada waxa ku jiro maadooyin bakteeriyada la dagaalama, kuwa oo sunta ka saara misana dilayo bakteeriyada afkeena ku jirta, waxayna ka neefteena mid fresh ah. Haddii aad avokaado cabitaan aad ka dhigatana urta afkaaga ka soo bixayso waxay u badan tahay in aysan sii jirin. Faa'iidada labaad, waxa ku mahadnaqi doona kiliyahaaga. Ma ogtahay in avokaadada qani ku tahay maadada potassiumka oo ka kaalmeynaya in kiliyahaaga si wanaagsan u shaqeeyaan? Dhaqaatiirta ku takhasustay xanuunka kiliyaha ku dhaca aad ayay kugula taliyaan bukaanadooda in ay qaataan khudradan avokaadada ah. Dabcan istaadiyo la sameeyay oo dhowr nooc ah ayaa sidoo kale cadeeyay in haddii ay kiliyahaagu wanaagsan aad avokaadada saaxiib ka dhigato. Faa'iidada saddexaad, beerkeena wuxuu u shaqeyn doonaa si cajiib ah. Xanuunada beerka ku dhaca ayaa inta badan sababa dhibaatooyin aan laga soo kabsan karin, laakiin marka avokaadada timaado wax walba waa ay suurtagelisaa. Khudradan avokaadada ah waa khudradaha ugu wanaagsan kuwooda ugu horeeya marka laga hadlayo caafimaadka beerkeena. Glutathione oo wasakhda beerka ka nadiifisa. Sidoo kale avokaadada waxay xambaarsan tahay fitamiinada sida C iyo E. Fitamiinadanna awood waxay u leeyihiin beerkaaga si wanaagsan inay u sii alaaliyaan. Ogow, hal avokaado aad maalinkii cuntaa ayaa awood u yeelan karta in ay ka ilaaliso waxyaalo badan oo nafsadaada soo wajihi. Faa'iidada afraad, dhiigkarkaaga iyo cholesterol levelkaagaba hoos ayuu u dhacayaa. Haddii aad tahay shakhsi u dhiban xanuunka blood pressure-ka, waa inaad avokaadada ku soo dartaa dietkaaga oo aad maantaba bilowdaa cunideeda. Waayo sida aan horay u soo sheegnayba waxay qani ku tahay maadada potassiumka oo ka caawin karta hoos u dhigga levelka dhiigaaga. Daraasado kala duwan oo la sameeyay ayaa cadeynaya in cunooyinka qaniga ku ah maadooyinka potassiumka ay hoos u dhigayaan pressureka dhiigga qofka. Faa'iidada shanaad, indhahaaga ayaa ku duceyn doona. Araggaaga aad ayuu muhiim ugu yahay caafimaadka marka laga hadlayo. Waa uu horumaraya haddii aad avokaado aad saaxiib ka dhigato. Avokaadada waxaa laga helaa maadooyin badan oo jirkeena sunta ka saara, sidaan horay u soo sheegnaba waxaana ka mid ah maadada luteinka iyo zeaxanthin maado la dhaho, kuwa oo ka protect gareeya waxyeelada iftiinka buluuga soo gaara. khuburada caafimaadka ayaa cadeeyay in avokaadada indhaha ka difaacdo in aysan daciifin, isla mar ahaantaana xoojisa awoodda iyo aragga indhahaba. Faa'iidada lixaad, waxay difaac ka siin doontaa cudurka kansarka. Cudurka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa haya, laakiin dadaalku waa lama huraan. Ayada oo ay qayb libaaxa ka qaadanayaan maadooyinka avokaadada ku jira sida carotenoidska iyo monounsaturated fatka oo ah faatka qaybtiisa wanaagsan, waxay ilaalo khaas ah ka siinayaan cudurka kansarka, khaasatan midka gala naasaha. Labadan maado ee aan soo tilmaamnay ayaa lagu yaqaanaa in ay joojiyaan in uu koro cudurka, waxayna baabi'inayaan seeliska koriya kansarka, waxayna kor u qaadayaan labadan maado koridda unugyada difaaco kansar. Faa'iidada toddobaad, miisaanka ayaa ka dhici doona. Avokaadada waxaan ka aaminsanahay in ay faat badan leedahay oo lagu cayilo, balse avokaadada waa opposite, miisaanka ayay la dagaalantaa. Waayo marka laga soo tago macdamaha tirada badan ee ku jira, waxa kale oo laga helaa maado lagu magacaabo fiber oo qofka erjisa. Marka aad galaas avokaado ah qac ka siiso, waxaad dareemaysaa dhereg ilaa xad ah, taas oo kaa caawin karta inaadan cuno badan aadan cunin, appetite-kaagana control galo. Qodobka sideedaad, avokaadada waxay xoojisaa awoodda fikirka iyo focuska qofka. Haddii aad ku dhiban tahay diirad saaridda shay ama howl aad qabanayso, haddii aad koob oo coffee ah cabi jirtay markii aad howlaha qaar aad rabto inaad qabato, bal hadda galaas avokaado ah agtaada soo dhigo, kadibna ku dhaqaaq hawshii aad qaban rabtay. Arag sida ay isu bedasho diirad saaridaada iyo ku mashquulka shayga aad markaas rabtay inaad qabato. Qodobka sagaalaad, maqaarkaaga ayaa nuuri doona. Waxa
ogaataa avokaadada waxay shaqo ka qabataa jirka qaybtiisa gudaha iyo qaybta banaankaba. dabcan daawooyinka dabiiciga ah ee jirka lagu qurxiyo khaasatan kuwa wajiga loo isticmaalo waxaa laga hagaajiyaa avokaadada ama qayb ka mid ah ayaa lagu daraa. sidoo kale waxaa ka soo hadalnay in avokaadadu leedahay fitamiinyada sida C iyo E kuwaas oo jirkeena ka caawinaya in uu u ekaado mid da'yar dhalaalaya aadna u qurux badan. insha Allahu tacaala maanta wixii ka dambeeya avokaadada ha ka mid noqoto dietkaaga maalinlaha ah. waxba kaama dhibeyso haddii aad jeex yarba maalinkii aad cunto, balse waxaad ka faa'idi doontaa faa'iidooyin tiro badan oo weliba xataa meeshan aan anaga kusoo koobi karin. insha Allahu tacaala videogeena maantana inta ayuu ku egyahay. waa walaalkiin Sabriye Axmed Xaashi. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.